هذا واديك عمر بن عبد العزيز markuu sidaa yeelay maalin baa isoo guriga jooga ayaa dadkii barasaabyada ahaa gobornayaalka ahaa way imanayaan sanad kadib ama dhowr bilood kadib warbixin bay keenayaan nin baa u yimid oo meel fog uga yimid gurigii buu yimid laakiin wuxuu u yimid Umar oo muuqaalkiisii isbedelay maalinkii Umar xukunka la saaray dadkii uu doorto kamid aha Umar ibn Abd al-Aziz wuu qurxoona laakiin maanta quruxdii ma qabo wuu yimid ninkii wajigiisa meel kale ma fiirnay Umar feenus buu shidan u fiirina markaas Umar uu wareysana ka waran reerkii ka waran ciidamada muslimiintii xaalkoodii ka waran feenus waa shidan tahay ninkan uu yaabaya wuxuu yiri Umarow inaan wax ka wareystaan rabaa wuxuu yiri ma arrimaha shacabka caamka iga wareysanaysaa mise waxaad iga wareysanaysaa arrimo aniga khaas ah maye kuwa caamka ma ahe arrin adiga khaas ku ah sugu yiri intaadan sheekada bilaabin wuu baxay wuxuu damiyay maxay feenusti buu damiyay wuu yaabay ninkii awal isagoo muuqaalkiisa la yaabana marka Umar wuu caatoobay midabkii cadaa wuu isbedelay lafihi baa soo baxay indhihii god bay galeen ninkii wuu qayirmay isaga oo dhan shacab caadi iska noqday ma aha boqoradii xariirta xirnaa markaasuu haddana nalkiisa feenusti damiyay xiriir Umar maxaa dhacay ya amir al-mu'minin wuxuu yiri feenustan iftiinkan xaq uma lihin in aan isticmaalo aniga baahidayda iyo arrimahayga markii hore waxaan uga faa'iideysanaynay nuurkeeda oo ay noogu shidnayd arrimaha caamka ah ee mujtamacaynu ka hadlaynay hadda laakiin arrimaha reerkaygii aniga inoo sheegay khaaskiya ayaa igala hadlaysaa soo ma isticmaali kari nin maanta jira arrinka ma sameyn karaa lama helay waa yiri Soomaa lama helay marka arrimaha laga hadlayana wuu daaraaya okay u fiirso waxa la keenay tufaax ayaa waxa pineapple ma apple ayaa la keenay oo zaka loo soo gooyay wali lama qaybinin dhar maraa katiifada loo dhigay waa la ururinaya buur buu leeyahay ciidama ilaalinaya bari caawa ama maanta in la qaybiyo la rabaa Umar halkaas oo kale u taagan yahay laakiin waxa soo gudbay oo ay askartii u ogolaadeen wiil yar oo ay Faadumo dhashay Umar uu dhalay ciidamadii soo dhaxmaray way arkaan dadka kale waa la celinaya oo tufaax wax soo dhawaan kara male xaggay dadkii lagu horaaya oo safta fariista ayaa la leeyahay in loo qaybiyo laakiin wiilkii yaraa wuu dhiiraday geesi dadkii buu soo dhex qaaday wuxuu u yimid tufaax hal xabo iska qabsaday markaasuu goostay Umar oo wuxuu arkay wiilkiisii yaraa oo tufaax dul taagan oo baashi gafsiistay Umar meeshii intuu ka soo booday isagoo is ogeen buu qoortii wiilkii qabtay intuu tunka soo qabtay buu afka gacanta intuu ka geliyay wiilkii yaraa buu ka soo bixiyay intuu sanadkii markuu ka soo bixiyay uu arkuu yiri alxamdulillah wuxuu arkay inaanu waxba ku tagin hatta dhacaankii alxamdulillah laakiin wiilka ma alxamdulillah uu leeyahay af labadii wuu dhaxay wiilka hooyadii buu aad soo ooynaa Umar hadduu tago guriga caaw xisaab u taala Soomaa maxkamada la saaraya laakiin waa faraxsan yahay ilmahi kale maxay u imaan waayeen meeshan عشان وويلكي مدحوينها ولا سوداي لما علين كذا أسكرت سوداين تاس أيب حديو كرات الرواس وموي ويلكي مدحوينها لما علين كذا وويلكي رئيس البرلمان وويلكي رئيس الوزراء مقع آبها يرتبضها سري جاقدا أيو ويلكي كفا إذي سنة يا أوسو قدبي لكن يا قرن كرا مؤمنك عاقلك قرن كرا wuu baxay guriga markuu tagay waxay tir Umar wax kale intaad ka soo tagtay wiilkii yaraa miyaad ummadda horteeda aad maanta ku caabayso aad kaga ooysiisay kistii yareed afka uu gastay miyaad ka soo saar wuxuu yiri wallahi Faadumoy ya darsi buu baraaya Faadumoy markaan wiilka afka gacanta ka gelinayay wallahi ma aanan qoslaynin laakiin
وإيجا حنون بدنيد أنا أفك أنت كعنت إسكجلي حيد ما هي الصوب فاي لكن إن أدون كان أن سدا كصبرنا أيا إيجا خير بدن ويلكي إنه يو أيا إيجا خير بدن إنتان إذيل كين عذاب آخرنا لو أويسين لها أبهي قرنا إلى بذلك دارية يا مجرو وروح سبحان الله أخريا مع كتاب الله وقرا مع علمين الله سوينا كوانا قادنا معها وذكر فإن الذكر تنفع وذكر ووانو كدنا عمر نين كان واتفيرتي يكسو جيدا يا دلي وويلكي عاصم وعمر بن الخطاب وقال سماه وريركا أبي أووجي عمر بن الخطاب سليد بو قيبين أي زكاة داسة بدن بالكيني والله جرجرايا فوستا لوجود قدنا يا لسوق جينا سهل كاللوجا بيرو داسة مركا لقت دم سليدة وحالو تورايا ميل بالو أورورينايا داسة ميل بالجينا لو أورورينايا سوما واحد دعي إلهي بذكر دارية مركا يضاع واحد دعي waxaa dhacaya daasadii markii lagu guray daasadaas waa la iska tuuri lahaa qashinka lagu shubi lahaa Soomaa laakiin sida tan oo kale yey ciidamadii soo daayeen dadkii halkaas lagu horaaya yaa dadkii soo daayeen dadkii waxay soo daayeen wiil yar oo uu dhalay Umar ibn Khattab dadkii uu soo dhexmaray aabihii reerihii ma arkay aabaha waa mashquulsan yahay arrimihii shacabka gadaal intuu mara daasadii intuu iska ag fariist xayiro carab wada wuxuu iska ahaatay balash buu daasadii gacanta intuu iska gashta saliidi ayuu iska marsaday wajigii markaas qurux dhalaalka cunugii wadiyaabe kuwii kale muslimiinta halkaas ku basaasan yihiin ma soo gudbi karaan qoraxdii dhidid halkaas wax soo gudbi kara malaha ciidamadii baa ilaalinaya عمر سوق الشواي ومبامر دبوستيس وحكو أركي ويلكيسي فلان أو قرحان وتبيه أنت مدحي كودجين دلالة سبكان سكن دقن أيو أركي مركاسا ودنها لك رجع ونحي حجر ورياكو كاني وريا سوداي أوي بحالو سوداي كاسوين أوي ورديه كالي كحاول كان دكانك كسوقات سكين حلاقة لو يري حيري مدح كحير وجهنا كدق سليدان ودن كدق ويلكي انت يا راد ويلك ويل ان دم بلهين لكن ويلك محو كفائديستي وارديالك محو كفائديين سليدان محو كمرسدي واود iyo xukunka abihi Soomaa lama rabo in laga faa'iideysto maxaa yeelay awoodan ninkan waa khaadim ninkan markii reerkiisa uu madaxda ka ahaa ilmihiisu mas'uul ka ahaa wuxuu doono isay doonaan ha uga faa'iideystaan laakiin markan reerkiisa ninkan doorashada galay governor ka noqday madaxda noqday isaga ka soo dhaxbaxay reerkiisii ummadan uu rabo in uu u taliyo ayaa reer u ah miyaanay ahayn iyaga doortay soo ilmihiisii iyo ummadaha kale way sugumid maanta booska reerkiisa ma jooga aabo ma ah ummadda dhan oo aabo u yahay Soomaa way sugumid ku dheeray ku dhow tol iyo qaraabo ma aha reerkaaga kaliya inaad u adeegtid bal waa inaad ummadda waa hadii la rabo janno waa hadii tale ilaahay la raacay diin ilaahay lagu dhaqmaayo la socdo in ummadii oo dhan Umar cunugii yaraa timihiisii iyo saliidiisii wuxuu ku waayay yaa ka faa'iideysigaas ku waayay ninkii madax xiiran ayaa wuxuu yiraahday ii soo dhaweynine ilmaha kale u geeyay xagga ku reeba isagoo madax xiiran ayuu ilmihii kale ku dhex jiray Umar markaas uu yiri alxamdulillah ilaahi itusay wiilkayga yaa oo aanan iga qarin markii cadaab u gali lahaa maxaa dhacay haddana isla Umar ibn Abd al-Aziz ayaa خادم يدي وارديالكيسي أذيجيالكيسي وعيري إيم أذيجيان أنا دلين يرأي هل جاي بيت المالكة. بركي شعب كنا لو مو ذا أذيج
aniga khaadim baa ahay see khaadim aan u qabsanaya qofka inuu macnahaas fahmaa la doonaya muxuu sameeyey cumar reerkiisuu u adeegi jiray siduu rasuulkaba sal alla alay slam reerkiisa ugu adeegi jiray adeegiddana ma aha inaad telefoon dirtid ama aad u yeertid darawal gaariga ummadda ee dawladda u adeegaya inaad dhahdraha gabadha gaariga meeshaad ku gee meel heblo ku gee aad maaragtay moolka intaad aadid inta waxay doontaa soo gadgadatee ma aha sidaa ma aha muxuu sameeyey reerkiisii guri uu lahaa uu gacantiisa ku dhistay isagoo gabadhii ay joogto Faadumo ayaa gabar kale u imanaysa iyagoo sheekaysanaya Faadumadii dhar fudud iska wadataa gurigeeday joogtaa gabadhana way asturan tahay baa oday biyoole oo dameer wata afar tanag ama afar caag u saaran tahay ayaa irinta ka soo galaya kadibna biyihii buu qaadaya foostadu ku shubaya isagoo ku shubaya ha ku shubay laakiin Faadumo eegaya dhinaceedu eegaya ay garbaheeda naagtay gabadhii markaasay ninkii fiirine Faadumo fiirine ninkii fiirine markaasay na Faadumo na hogta ninkii ma iska qabatay aduu ku eegayaa na is asturo garbaha xiro oo marada isku ninka eeg ay leedahay Faadumona waa qoslaysa bas odagii baa baxaya hogta wax ma ogiday ma taqaana odag biyaha shubay waa amiirul mu'miniin waa odaygii reerku u shaqeynaya عمر وبيوله مدحوينها بيم سوق هذا يا ريركم وش وايا بيكون بركة تاسي كجرتا بركة تاسي كجرتا مركز أدي بركة أدونك وحب بعوني لهي لكن وحو جاع عون حولها تدك عون وصن وتكون حنون سنيسا المهاجات فيس ويكون حنون سنايا عاسب يكون نقنايا حاسك عاسب يكون نقنايسا حولها الله بلغها آخر ولا رسولك وقولها والله ودارنايا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة والله متكين وحوسن حق لهن مقاته انتم مدح نقضوا وحوسن حق لهن مقاته إلا هدوقاته أو سكته ومتكين مالك قيامها إلهي قفل بولكم وصماها وحولكم ما يستقوا وحي سده adduunka kaaga maharaaya wixii wad qaadaysa xaqad la tagaysa Umar ibn Mas'ud wuxuu leeyahay waxa soo maraya qiyaamaha ummadii oo dhan nabi aadan kulli wada jooga waxa soo maraya la yiri waxa soo maraya nin ukun sida ukun waa ukun adduunka ku soo dhacay nin ukun wada nin digaag wada soo maraya nin ri wada soo maraya neef lo'a nin wada geel ummad dhan dawlad dhan nin uu xambaarsan ayaa soo maraya meesha ninka maanta wax dhaca maaha rasuulku wuxuu leeyahay warbaahidiina ka qaata adduunkan baahidiina ka qaata marka Umar ibn Abdul Aziz sidaas waxa labadii sano ee barkay uu hay maxaa dhacay marka wallahi markuu sidaa yeelay oo uu kala gooyay jeebkii madaxda iyo jeebkii iyo baytul maalkii oo uu cadaaladda sidaa u sameeyay ayaa meel walba lacagihii meel la geeyaa la waayay zakadii wax qaataa la waayay markaas wuxuu yiri baytul maalka lacagihii waa loo yimid war Umarow bangiyadu waa buuxsameen maxaan lacagtan ku sameeynaa lacag kalena waa soo socdaan markay wixii umadu qaadan jirtay ayuu ka soo dhiciyay waxaa la yiri inta dhalinyaro ah ee aan guursanin hala soo qoro baytul maalka looga guuriyo lacagii wili waa yaalaan meel la geeyaa la waayay maxaan sameeynaa wuxuu yiri inta waayeel ah oo dhan bil ha loo qoro inta curyaan ah ayaa shaqaysan karin oo dhan baytul maalka laga masruufo wali way yaalaan maxaan sameeynaa inta qaamaysan ee deema lagu leeyahay hala soo tiriyo kulli ha laga bixiyo wali lacagii waa tuwayiin barakaad jirta maxaa yeelay ninkan sidaa dhahaya waa nin gaajaysan laakiin lacagahaas waa lacagihii madaxda cuni jireen waa lacagihii ilma adeerada cuni jireen waa lacagihii gabdhaha ay cuni jireen wiilasha madaxda ay cuni jireen waa lacagaha gaalada lala qaybsan jiray weeyaan lagu laaluushi jiray wixii oo dhan uu ka cuna qabateeyay wuxuu yiri lacagahan madax yahay annaga malihiina waxa iska leh shacabkiina markaas ilaahay uu u barakeeyay way ka badbateen maxaa la gaaray
waqtiga barafku uu da'ayo shimbiraha in loo saaro buuraha korkooda raashin way ka dhacay markaasaa bannaanka misiga loogu daadin jiray jidadka masaafurku ay marayaan biyo iyo raashin loo dhigi jiray waxaa dhacday ilaahay keenay in xoolihii iyo dugaagii ay walaalo noqdaan oo ay heshiiyaan laakiin eeg cumar wuu dhimanayaa sida qof walba uu u dhimanayo xilkiisiina wuu ka soo baxay maalinkii uu geeriyooday dadkii baadiyaha ilaahay waa ogeysiiyey telefoonana ma jirin tvna ma jirin laakiin automatic way say ku ogaadeen waxay arkeen xoolahoodii oo la cunayo oo dhulwaayadii waa la isku soo jeestay libaaxiyo neefkii qaadanay xoolihii markaasaa war maxaa dhacay war coolka waa maxay war maxaa balaayada oo dad ka yimid magaalada oo geerida ogaa ayaa yimid war maxaa dhacay waxaa la yidhi boqorkii baa dhintay waxaa la ogaaday waxa ilaahay yaa uu uga yeelay xoolihii inay israacaan dugaagga in uu ahaa ninkaa dartii awal waa lala yaabanaa ninkaa dartii inuu